السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وليال sida aan ogsoonahay inaan ka warqabno maalmahan bulshada Soomaaliyeed ee social media-ha waxa aad iyo aad uga socday maaragtay iskumaadid ama is-aflagaadeen ama meel iskaga dhac ama maxay ahaydaya anaa ka qabiil fiican, anaa ka maaragtay laandheersan iyo anaa ka awood power iyo sareeya. runtii social media maanta wuxuu noqday meel maanta la isku aflagaadeeyo, la isku caayo, wax walba la iskaga sheego. meeshii waagii hore aan social media aan la aqoon jirin oo la isku aflagaadeyn jiray si live ah, maanta waxay noqotay laakiin in oo maaragtay si aan live ahayn la isku aflagaadeeya. qofkii ku aflagaadeeya oo kale, qofkii kale oo dul qaadan waaya ama adkaysan waaya aflagaadada uu sameyn jiray reaction ah live, inuu ficil sameeyo. marka hadda walaalayaal, ficil meel laga sameeyo ma jirto. qof walba waxa waaye qolkiisa iyo ku soo dhaxadlaya, meel uu joogo lama yaqaano, wax uu ku sugan yahay lama oga. duruuf ku qasabtay oo qofkaasi caay la yirina oo kale lama garan karo. waxa ku qasbaya ninkaasi inuu aflagaada sameeyo oo qof walaalkiisa iyo sharaftiisa karaamadiisa meel ugu dhaco. waxa ku kalifaya annaga ma naqaano, mana ka warqabno oo walaalayaal. marka waxaa fiican sideeda bannaanba inaa maaragtay la is ixtiraamo oo sharafta iyo karaamada iyo qofka walaalka aan meel loogu dhicin. qofkaasi aniga aan isleeyahay waxa ku qasbaya keliya view badan hel ama comment badan hel ama subscribe badan hel unbuu maaragtay dadku usoo aflagaadeynayaa bay ila tahay. aniga aragtidayda iyo garaadkayga ayaa maaragtay ka hadlaya. marka walaalayaal, waxaan leeyahay dadka aadka social media caanka ugu noqday, waxaan oran lahaa maaragtay inuu qofkaasi maaragtay walaalaha uu ku xadgudbay inuusan ku xadgudbin oo maaragtay ixtiraamo walaalihiisa, maaragtay oo cirdigiisa iyo sharafkiisa ilaashado. maxaa yeelay qofkaasi noocaas oo kale muslimnimada sheeganayo, Soomaaliga sheeganaya, inuu maaragtay qofka walaalkiisa uu ku xadgudbana laga fiican yahay walaalayaal. marka waxaan oran lahaa dadkaasi oo ku caanbaxay aflagaadeynta dadka walaalihiisa ama dadka walaalahooda aflagaadeeyaan, mar walba waxaan dhihi lahaa ama aan maaragtay ka codsan lahaa, maanta qofkan walaalka ah waano unbaad ku leedahay iyo wax u sheegid, wax kale ma aha. marka waxaan dhihi lahaa dadka noocaas oo kale ah inay maaragtay ay ka waantoowaan aflagaadada iyo waxyaalaha qaarkood. xorriyatul qowl waa jiraa oo maanta maaragtay qof walba inuu xorriyatul qowlkiisa uu ku hadlo wax fiican weeye, laakiin waxaa xumaata ah qofka shakhsigiisa in meel loogu dhaco baa qaabdaro ah. maaragtay in ilaahay laga baqo oo maaragtay la dhowrsanaado. qofka mar hadduu muslim sheeganayo walaalayaal, waxaa fiican oo ila kuman in qofka kale walaalkiisa muslimka ah uu ka nabad galo. sida ayaa ila kuman oo aragtidayda ah oo sida saxda ahna ay tahay insha Allah tacaala. marka hadalka kusii dheeraan maayo oo maaragtay maanta waqti yaroo kooban baa maaragtay jeclahay mar walba inaan social media wax un ka soo yiraahdo anigoon qof walaal aanan wax ka sheegin mar walba walaalayaal. marka waxaan oran lahaa ha ka digtoonaano oo dadku caanbaxay inay dadka caayaan, inay dadka waxyeelayaan social media-ha. marka qofkan haddii xataa live loo arki lahaa ama meel kasta oo bannaankan lagu arki lahaa waa la waxyeeleyn karaa oo maaragtay maanta waxba ma ahaateen. laakiin qofkan oo kasoo hadlayo qolkiisa dhexdiisa oo aflagaadada kasoo geysanayo, jawaabtiisa ama reactionka lagu sameyn kara wax kale ma noqon karo in la dhaho walaal saas ma aha, sidaan baa fiican, iska ilaali xumaanta dadka walaalka ku xadgudbaysa jooji. in la waaniyo unbaan maaragtay maanta jawaabta noqon karta.
marka intaasaan hadalka kusoo koobi lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.